حتى راشين كسبتال كله وكينا ده درس كانوا سوق عادي جري غير لاسي مركز كسبتال كله بلا كجري مركز أنا كسب بحني فريتان كاسالك إنه بسيحن بابين waxaan leeyahay nacay sida aan qadiyo qadartii leh wallahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsada niideedii ilaahay ku xiray inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday hatta taas oo igu sameeyeen in qadarta ka mid tahan aaminay gurigan aan hortaaganahay waa guriga magaalada Muqdisho ay ka degan tahay Dhibane Maryan Muxudiin Maxamuud oo ah gabar muddo 14 sano ah la xanuunsan xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafeysay qaarkeeda damba muuqaalka intaad daawanaysaan waxaad ka bogan doontaan warbixinta Maryan oo dhameystiran gurigan ayay kula nooshahay reer ay qaraabo yihiin Dhibane Maryan Muxudiin oo ah gabar laba meel marka loo dhigo daadeeda qayb ka mid ah ku soo qaadatay xanuun ay sababtay xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafo ka dhigtay qaarka dambe ee jirkeeda iyadoo markaasi ka soo baxday 7 arooskeeda waxa igu dhacay xabad dhabarkayga dhacday aniga aroos ka baxay oo gabar yar ah 22 maalna ninkii isqabna 3 toddobaad noo suuq siina adeeg ka doonayo xabadan dhabarkayga dhacdo wiifto oo meel ka imaatay la ka siina marka dibkaas markuu igu dhacay isbitaalkiisana la geeyay isbitaalka 2 biloodan ku jiray wallahi caqabado badan iska jiraan qof aan xaadeed ku soo karin maanta waxay nacda aan ka tagi karin waxay jeceshaa aan qabsan karnaan ahay kaadina ma shakar saxaradina ma shakar oo dhaqaalaha wala qof gooni ma dhaqaalays ilaahay caawiyo umada iskala joog waaga hore waalidkay walaalay la joogi jiray laakiin dad ehel la jooga mas'uulna ma tago ma tagi kari tunji ay sameeysan waa la keenaa waa qoraa markii aan qoraysa tagana waa la qaadaa kursi kala lagu fariisiyo saan oo kale waa la qubeeyaa wala 14 sano ka badana umriga kala barkiisa soo qaad Dhibane Maryan ayaa ii sheegtay iyadoo xanuunsan muddo 22 maalmood ah in ninkeeda oo ay markaasi ahaayeen aroos cusub uu ku nacay xanuunka isla markaana uu iska furay iyadoo aan hooyo iyo aabe toona u joogin magaalada Muqdisho isbitaalka dhakhtarka wuxuu dhahay marka dadkii ninka ayagoo fadhiyaan oo kale wuxuu dhahay gabadhan wadanka waxba loogama qaban karo hadii awoodin dibadda u qaato reerka marka weydiis ABC ehelku way joogeen asna wuu joogay waxay dhaheen waayo isku soo laabanayna markay guriga yimaadeen waxay dhaheen naagsaas naqatay hooyo waxba ku ma tareysay qarashna uma hayside mid fiican ka guursay iska dhaaf markay isbitaalka anagana ma awoodin xataa qarashka isbitaalka dad ay bixiyay inta markaas aan ku jiray hooyadeen anagana xamaaleysay ma eena awoodin حتى راشين كسبتال كله وكينا ده درس كانوا سوق عادي جري غير لاسي مركز كسبتال كله بلا كجري مركز أنا كسب بحني فريتان كاسالك إنه بسيحن بابين waxaan leeyahay nacay sida aan qadiyo qadartii leh wallahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsada niideedii ilaahay ku xiray inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday hatta taas oo igu sameeyeen in qadarta ka mid tahan aaminay Dhibane Maryan oo muddadii xanuunsaneed waxba loogu qaban waayay dalka gudihiisa ayaa loo sheegay in xanuunkeeda wax loogu qaban kara dalka Jarmalka balse nasiib darro iyada ma awoodo dhaqaale ay ku aado dalka Jarmalka saad hore u soo daawateen Maryan ma haysato wax hooy ah oo halkan ayaa hooy u ah waxayna la nooshahay reer ay markaasi qaraabo yihiin arinta yaab kale ayaa waxay tahay Maryan dhibkan marka uu soo gaaray muddo yar kadib in soojkeedii ama ninkeedii uu xanuunkan awgeed uu u furay ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad dibadda ah oo ay u sheegeen dhaqaatiirta inaan dalka wax lagu qaban karin isla markaana ay u baahan tahay in dalka dibaddiisa gaar ahaan Jarmalka lagu daweyn karo xanuunkeeda والله أرتي لا يا واحد بحيو dadkana asaa caawiyo markii laga soo tago waxa codsanahay dadka madaxda dawladda iyo dadka Ilaahay wax siiyo islaamka Soomaali xataa madhahay kaligeed inay soo caawiyaan oo sida ameesha aan rabay oo hiigsanay ama la igu sheegin wax laga qaban karo liigeeyo xagee laga soo xiriiray hadii loo baahdo lagu caawiyo waxa laga soo xiriiraa furaashan
85 97 85. Ismaaciil Aadan Bariisa, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.